baxnay dhibaatada haysato dadka reer Muqdisho qarax maalin walba lagu wado dhibaatada u maadaan halkan u imaanay inta dhimatay Ilaahay u naxariisto inta dhaawacna Ilaahay ha caafiyo Isobax murug la wadaagid ama baroordiiq ah ayaa ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle waxaana magaalada buuxdaafiyay kumanaan shacab ah qaybahooda kala duwan kuwaasi oo eriyo kala duwan ku xadaaqaya isla markaana tilmaamaya inay ka soo horjeedaan xasuuqa loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed madaxda maamulka gobolka degmada iyo maamulka Hirshabelle ayaana ka soo qayb galay fagaaraha isobaxani uu ka bilowday waxaana sidoo kale ugu dambeyntiiba socdaal lagu soo dhexqaaday wadooyinka waaweyn ee magaalada Jowhar ee xarunta maamulka كل صدالك وحاور بينت الله هذلي معمول كقبل كيو دجمدا يولي بمسؤولين مثلي معمول كيرشبله كواسي وسيوس كميدا وتعسيدي شعب كيلو بابي مقالة مقدشة عاصمة الصومالية. يمكن بنتين الله محرسه يمكن دعوة ما الله بلغة ضيق وأريد حنونه. صومالي واحد رجالي دي قلبي لقيت أن قندها هذا كذا. وحربنا صومالي أبوباكا دليلنا هواينك. odayaasha nin walba waa inuu askari noqdaa waa nin walba waa inuu askari noqdaa إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحمرنا يتراين وقلنا قتل دمانتن مسلمين تعيي قارهان صوماليا ملك سوق جنتبا مصيبة كد علي مسقويس كصوبة waxaan dhihi lahaa ummadda loo gudmado marka waxaan qoraxda ku taaganahay ummadda Soomaaliyeed inay aragtay in cadow Soomaaliyeed oo nafta Soomaaliyeed iyo maalka Soomaaliyeed banaysanaya inuu yahay dawlad diid inuu yahay Soomaali diid in dalka la diisho dadka la dilo ay u soo baxeen hadal badan meesha ma iiga furna waxa u jeedaa in xanuunka ay tahay إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون دمان مسلمين ما يبغون وعن كذا تأثيرنا يجري نحن تلقي كتاب دكتورن وعن كلامسن ما أنتم عمشان مسؤولين مثلنا عشان بنجمع شغل كنا تيراينا إن دكتور مدعونا أنت دمت الله المعاريسته إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وعن ما أنت سوسو بحني المسؤولين الشعب يدعم صحافة يعير يجناسة قضيان رسولية حوالنا ديالنا نحن سوسو بحني dhibaatadii ka dhacday isgoyska soo baxay waa musiibo ummadda Soomaaliyeed ku habsatay waxaana Ilaahay ha caafiyo intii dhaawacan intii dhimatan Ilaahay ha u naxariisto waa musiibo aysan ku filnayn qof iyo maaragtay dawladda Soomaaliyeed wax ka doonaya meesha ka dhacay waxaan anaga diyaar loo nahay gobolka Shabeellaha Dhexe maamulkiisa haddaan nahay lacag $5,000 inaan maaragtay ku deeqno dadkaas dhibaatada ay ka soo gaartay meesha shacab ay ka muuqato khiiriyada wadaninimo ayaa waxa ay dhexehaawayeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Jowhar iyagoo eriyo kala duwan ku xadaaqayay marka laga soo tago shacabka wadooyinka maraya waxa ay kaamirada Bulsho TV qabanaysay hooyooyin iyo qayb kamid ah curyaaminta ku dhaqan magaalada Jowhar oo iyaguna xamaasada wadaniyadnimo ka muujinaya goobaha ay ku sugan yihiin inta lagu jiro soo baxani ayaa waxa telefishinka Bulsho la hadlay qayb kamid ah bulshada isu soo baxday magaalada Jowhar kuwaasi oo sheegay in ay u tacsiyeynayaan ummadda Soomaaliyeed masiibadii qaran ee dadkan Soomaaliyeed waa la damqanayna walaalahana aniga maanta waxa isku soo baxnay dhibaatada haysato dadka reer Muqdisho qarax maalin walba lagu wado dhibaatada u maadaan halkan u imaanay inta dhimato oo tacsiideyna Soomaaliyeed Ilaahay u naxariisto inta dhimato inta dhaawacna Ilaahay ha caafiyo inta dhimato Ilaahay u naxariisto inta dhaawacna Ilaahay ha caafiyo bal dareenkiina ka waran maanta dareenkiina maanta aad u kacsan ma la soo koobi karo walaalahana dhibaataysan marka waxa doonaynaa Ilaahay lacag u aruurino dhigno u shubno rajasa u nahay maxay dhaamar Umar Amis walaalaheen xamar jooga waa dhibaataysan qaar waa dhinteen qaar waa jilay al-shabaab dooni meen al-shabaab na la dagaalamayo
ka qalin jibinaysay ee damaashaadka iyo reereynta sugaysay mucjisadu ay la kulantay ayaan ka xunnahay shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel ka soo jeesta midnimo waa markii ugu horeysay oo magaalada Jowhar ay isugu soo baxaan dad tiradooda intaani ay gaarayso kuwaasi oo ka soo horjeeda dhibaatooyin loo geysto bulshada Soomaaliyeed Cabdi Fataax Ahmed Maclow Zaki Bulsha TV Jowhar